dagaal waa lama huraan. Taariikhda Itoobiya isbedel dhacay ama gudahooda ha noqoto misena taariikhtayada anaga gooniga nooc ha noqoto isbedel dhacay oon dagaal ku imaanin ma jirto hadday Itoobiyada kore noqoto iyo haddii ay noqoto inta anaga aan haysano. aad iyo aad baa umahadsan tahay waad maqashaa maanta ninka la odhan jiray Axmed bal xalku muxuu noqon karaa xalka aniga wuxuu leeyahay dagaal waa lama huraan. taariikhda Itoobiya isbedel dhacay ama gudahooda ha noqoto misena taariikhtayada anaga gooniga nooc ha noqoto isbedel dhacay oon dagaal ku imaanin ma jirto hadday Itoobiyada kore noqoto iyo haddii ay noqoto inta anaga aan haysano. marka dagaal waa lama huraan haddii aad diido inaad dagaalka gasho Itoobiya way soo kala bixi adoo halkaa fadhida lagu amaanayaa waayo nabad waxay dhihi jireen Soomaalida lagu haayo nabad ma ahan. marka laba goorayba dagaal waad galaysaa ma ku lagu qasbay oo gurigaada lagu amaado waad galaysaa isku aad u diyaar garowday. marka anigu waxaan aaminsanahay maxaa dhihi jira dagaal kama dhibcaane gooni goosad anigu qodobka ugu dambeeyo oo marnaba aan aaminsanahay in laga tanaasulin waayo war dardaarankii awooyadanada maxaa dhihi jira waa wixii malaayiin qof ay u dhimatay waa gooni goosadka intii la gaarayna ku meel gaar waxaa anagana as xukumo anigu taasaan aaminsanahay marka shakhsi ahaan maandeqeedaa wata dad maxaynu hadda ka hor diidanaynu hadda helnay waxaynu hadda ka hor diidanayn malaayiinta qof aynu ku weynaynu hadda helnay muxuu yahay maxaa tiri ku soo celi waxaynu hadda ka hor diidanayn hadda ka hor dadkeenu ku dhammaaday hadda helnay muxuu yahay waa su-aashaan isweydiiyo wax ilaahay abuurtay oo isbedel leh oo maanta la taawani karo oon dhihi karo waxaas baa maxaa dhihi jiray isbedelay ma jirto isbedel waa maalin waa nala dhahay oo waa sababta maxaa dhihi jiray aan u filayo inay maxaa dhihi jiray olif peace treaty ay u seexde laakiinse waxyaalahii markaan anugu taariikhda aqrinayo aan ka dagaaltamayna hadday noqoto taxationka oo hadda financeka la dhahayo hadday noqoto inaan anaga maxaa dhihi jiray aan xor u ahayn ismaamulaynin oo maxaa dhihi jiray oo weli kor noogala soo doorayo maxaa dhihi jira shakhsi Itoobiya ay soo doorato noola keenayo hadday noqoto maxaa dhihi jiray kheyraadkayaga inaan u madax banayno qodobadii abid aan Itoobiya isku haysanay in referendum la qaado maxaa dhihi jiray oo dadka bal ayaga la weydiiyo inay Itoobiya rabaan oo qodobkii ugu weynaa oo maxaa dhihi jiray loo dagaaltamay ay tahay intiiba mid lama haayo. marka dagaalka intaas baa loo keenay xabadda iyo dilkana taasaa keenta marka hadda intiiba ma hayno marka ma fahmin waxa isbedelay oo maanta anaga aan ku kalsoonaanayno oo dadka maxaa dhihi jiray ay niyad ku dhisaan su-aashaas maxaa dhihi jiray mar wali waan isweydiiyaa waana jeclaan lahaa dadka dhahayo balaayo ma jirto amni waa jiraa maxaa dhihi jiray dagaal ma rabno anigu dadkaasaan rabaa inay maxaa dhihi jiray aan weydiiyo hadday garanayaan sooyaalka maxaa dhihi jiray dhulka wixii abil loo dagaaltami jiray maxaa maanta ka haynaa maxaa intaasoo qof ay u dhinteen 1955 maalintii Ethiopian maxaa jiray lagu wareejiyo si official ah oo u baxay maxaa jiray Ingiriiskii oo maxaa jiray officially part of Abyssinia aan noqonay ilaa maanta intii qodob la isku haysta midna wax xal laga gaaro ma jiro marka anigu waan fahmi laayahay haddii aan iska qaadanayn adoonsiga waxay 1955 in aan adoonsi qaadano inii halgankii Nasrullah la galamaynan ahayn inii TWS lafus ku sii bedeshay aan la galamaynan ahayn inii maxaa jiray oonal maxaa jiray la galamaynan ahayn intii qodob loo dagaaltamay midnaba gacan kuma hayno marka waan fahmi laayahay waxay dadka ay ku qanceen haddii deelis diibay oo la leeyahay adoonsi aan diyaar u noqonay taas la soo bareero laakiin wixii loo dagaaltamay waxba laga ma hayo